السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناقصن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiinaya hadiyad ee bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay in qaar ka mid ah shacabka reer Gaalkacyo ay ka faa'iideystaan su'aalaha bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu soo diyaarinay halkan barnaamijka waxa maanta taabagelinaya shirkadaha daabacaadaha ee Sanchez iyo waliba xarunta amaana elektaroonig ee ku taala Gaalkacyo oo ka shaqeysa elektaroonigada kala duwan keenta magaalada Gaalkacyo su'aalahan soo diyaarinay sidee uga faa'iideysanayaan shacabka reer Gaalkacyo inagoo Ramadaan walba hadahan oo kale aan weydiino su'aalaha bisha barakeysan ee Ramadaan oo aan u soo diyaarnay shacabkeena waan arki doonaa su'aalaha soo diyaarinay si shacabka reer Gaalkacyo uga faa'iideystaan daawasho wacan ee la socod barnaamijka waxa sidoo kale fursad ku siinaya su'aasha markaan qofka weydiiyo adigu daawada ah inaad ka jawaabtid su'aashaasi la soco waxa ku xusan hadiyad adduunyada la iska leeyahay adduunyada la iska leeyahay anigana la iska leeyahay anigana la iska leeyahay asagana la iska leeyahay asagana la iska leeyahay anagana Allah nali Allah soo dhawow Ramadaan Kariim magacaaga فارع عبد الدين فرح وديار أو تاسومان سؤالك ويديننا بيش بركيزة سؤالش عن كويدينا وحول على أساس تن شيء إمس السنة يسود دقيق القرآن يسود دقيق صدوات واحد يسود دقيق القرآن كإمس السنة يسود دقيق كويد ما هي ويا هاي محارة جلسة مر رجينا إلهي إنك سعيد ملام يا سلام برت وما صنت هذا ما صنت اسكودي وعن وان فيلا يا مركله انا اسكودي دونتيد انا كفايسن دونتيد وما صنت رمضان كريم وما صنت سورو مايعه عفتاح عبد الله عفتاح رمضان كريم ديار او تاي سومان سؤالك ويدينين واي ومركو وريس لكن اد كموقتي كاميرا سوما سؤالشان كويدين waxa u dhacay sidatan sheeg imisa sana ayuu soo deeyay quraan kariim 23 sano 23 sano waa habta Soomaa 23 sano jinaya waayahay waan arki doonaa daawadahaasi iyo jawaabta uu ka jawaabay daawadahaasi su'aashu ka jawaabay waa mid sax ah oo waxa uu quraan kariimka soo degay 23 sano waxaan siin doonaa hadiyada ay ugu tala gashay shirkadaha Sanchez ee Gaalkacyo nasiib wacan waayahay Ramadaan Kariim oo maasantahay hadiyada koowaad la bax si bulshada ay u arkaan ka faa'iideysigaaga waana ku maasantahay farxad wacan وما صنت هاي رمضان كريم هذا ما صنت رمضان كريم سام ما يعاقا ما شاء الله أكبر حسن سام سؤالشان كويدين ديار أو تسوما ديار بابا ويا هاي سؤال واحد على أساس تن سومالي دور محور نمط غلط يا سومالي دور محور نمط غلط كن سؤال بقول سيدنتك سوماليا ويا هاي محار جنسة يا محار جنسة وحول بورتنا ويا هاي daawasho wacan aan leeyahay dhageystaas aad u maasan yahay isku day wacan waana maasanta haye soo dhaw magacayga Sadiq Cabdi Maxamed Sadiq Ramadaan Kariim waa ku faraxsantaa Soomaa markii horeysa ka dhex muuqatay kaamir Soomaa aad iyo aad su'aashan ku diina waxa u dhacay sidatan Soomaaliya door maxor nimad qaad 1960 waa habta Soomaa waayahay daawadaas aad u maasan yahay su'aashu ka jawaabay waa mid sax ah waxa uu leeyahay abaalmarinta ay ugu tala gashay shirkadda Sanchez ee Gaalkacyo hadiyadaada hoo la bax si shacabku arkaan bal hadiyada tusayaan insha Allah waxaan rajaynayaa abaalmarinta inay sii wadaan Sanchez dadkuna ay su'aalaha la weydiinay aad iyo aad uga faa'iideystaan iyo kuwa ka jawaabay intaba laakiin waa filaysa markan aan ka soo dhex muuqato meeshan insha Allah ta'ala saas rajayna waa maasantahay nasiib wacan wali waxaan bartanka ugu jirnaa barnaamijka weydiinaya hadiyada bisha barakeysan ee Ramadaan shacabka reer Gaalkacyo waxaan u maleynayaa inaad daawanaysaan oo ay ka faa'iideysanayaan su'aalahan soo diyaarinay iyagoo qof kasta nasiibkiisa u tijaabinayo su'aalahan soo diyaarinayna waa kuwo dabcan aan uga faa'iideynayno bisha barakeysan ee Ramadaan qof kasta nasiibkiisa waxa uu saacido ayaan arki doonaa iyo waxa halkan uu kala tago dadweyne fara badan ayaa halkan ku guuleystay haatan inta yarta aan ku guda jirnay barnaamijka hadiyada kala duwan waan arki doonaa kuwa kale iyo waxa kale ay ka faa'iideystaan Ramadaan Kariim magacaaga سكريو كم ده فيري برامج كوالا سعة سماه ويديني هدية ونصيب كات جمسة وهي سؤالشان كويدين حول أساسا تن شيء ميت كحلاشة كلون كواي يا أيح وهي يوم سنة هاي داودها سي ما يعيا سكري عبد هذا سؤالش كتشوابي وميت صحة هذا ما صنت هاي نصيب وعنا كلها
hay maxaa rajaysay maxaa filaysaa marka wax weyn ay markii hore halkan soo istaagay hadda farqiga u dhaxaysa Soomaaliya bulshada maxaa u baaqaysaa marka inay isjeeyaan istijaabiyan ay ma santa nasiib aan ay aad ma santa bay'ay Sakariyo Faarax jaamac Sakariyo aad u faraxsantahay soo barnaamijkan ka qayb qaadatay aad baan u faraxsanahay Ramadan Kariim Ramadan Mubarak waayahay barnaamijka ka waran sida u aragtay inaad galabta ka qayb qaadanaysid si fiican baan u arkaa waayahay su'aashan ku weydiinayo diyaar u tahay Soomaa Ramadan diyaar baan wahaa su'aashan waxay u dhacaysaa sida tan sheeg markii la aasaasay xarunta ammaan elektaroonig gaalkacyo waa isku dayaa laakiin ma aqaanin ay waa isku day 2011 maxaa filaysaa marka inay si fiican u shaqeeyaan filayaa waayahay aad ma santa isku day wacan waa ma santahay waan filayaa marar kale inaan ugu salaaman doonto حسن صحن صاحب برودكشن صاحبي قال هذا وما سنتهي وحنا اللي هذه شعب وينها رجال كعيد رمضان مبارك رمضان الكريم waayahay su'aashan ku weydiinayo diyaar u tahay Soomaa آدي هدي إله إفضيه ما دام صون كده وتم بدي مانتا واسكدي إن شاء الله waayahay su'aashan ku weydiinayo waxa u dhacaysaa sida tan sheeg markii la aasaasay xarunta ammaanka gaalkacyo حقيقي هدان اسكدي إنك سؤال أي كذا استهاي لكن أي وديس وحنا كوفي عنا ذي وديس سؤال كلا تعريقية لكن أمانة إلكترونيك سحلي على أساس وحنا كو قياس يا لبض كون يا سديدي intee sana laakiin asaasanta تقريبا waxay aasan tahay hadii la xisaabiyo 2008 waxa laga joogaa adiga 10 iyo maxaan dhihi lahaa 10 iyo 2 qiyaastii taqriiban midda kugu dambaysa 12 iyo 2 ku adkaysta waa ma santahay isku day waxaan ku leeyahay ma santahay waan filayaa marar kale inaan ugu salaamin doonto ma sant Ramadan Kariim magacaaga Abduqaadir Abdulle Abduqaadir diyaar u tahay barnaamijka weydiinaya hadii bisha barakeysan nasiibkayga aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waa markii ugu horeysay Soomaaliya ka qayb qaaday markii ugu horeysay waayahay su'aashan ku weydiinaya waxa u dhacaysaa sida tan waan filayaa su'aal inaad ka jawaabi doontid hadiyada waaweyn baa yaala meeshan laakiin su'aasha waxa u dhacaysaa sida tan sheeg goortii la aasaasay xarunta ammaanka gaalkacyo waxaa la aasaasay 2010 ayaa la aasaasay teesana laga jawaabo waxaa laga joogaa 11 sano ayaa laga joogaa hadii 11 sano ku qiyaasaysaa wali xaruntaas ma tag waa tagaa in badan baa ka adeegtay waayahay maxaa filaysaa marka waxaan filayaa guul insha Allah aad ma santahay waa ma santaa saaxiib isku day waxaan ku leeyahay waan filayaa marar kale ama maalmo kale inaan ugu salaamin doonto laakiin su'aashu sida saxda ma waa ma santa الله برنامجka ina ka soo muuqdo ku faraxsanahay magacayguna waa Mahad Axmed Cabdiraxmaan Mahtaajir waa ku dhawaad marka barnaamijka maxaa rajaynaysaa marka runtii waxyaabo badan wanaagna u badan rajaynaya su'aashan ku weydiinaya waxa dhacaysa sida tan sheeg goortii la aasaasay xarunta ammaanka gaalkacyo iyo inta sano ay jirto xaruntaas wallahi amaana dhowr jeer baan ka gatay qiyaas ahaan waxa leeyahay waxa la aasaasay 10 sano ka hor dana qaldanayn 10 sano marka 10 sano ka hor aan leeyahay marka 10 sano aasaasantaa 10 sano aasaasantaa saan ku qiyaasaya ma santahay isku day wacan nasiib wacan ku leeyahay ma sant guud ahaan daawadayaal wanaga intaas barnaamijka weydiinaya hadiyada bisha barakeysan ee Ramadan su'aalaha kooban ee bisha barakeysan ee Ramadan aan ugu talagalnay in dadweynaha ku weydiino ayay intaas aan ku soo idleenayaa daawadayaasha ka jawaabay su'aalaha aan soo diyaarinayna aad u maasayeen kuwa kale ee maalmaha soo socda ka faa'iideysan doonana waxa leeyahay waxa idin sugaya hadiyado qiimo badan oo idin soo diyaariyeen shirkado aad u qiimo badan oo ka qayb qaadanaya barnaamijka weydiinaya hadiyad waa saaxiibkii Maxamed Muxidiin Saxan Saxo iyo waliba sidoo kale saaxiibkii dhan kaamil iga saaciidaya Cabbaas oo idin dhahaya sidaas isma dhaafno iyo barnaamijkan ka xiiso badan waa mahadsantihiin daawadayaal isma dhaafno